Bismillah, hello to everybody. Asxaabtaad baan idin salaamayaa. Habeenimo wanaagsan, maalinimo wanaagsan, xil walbo waqtigay idin tahay. Haddaba caaway sida aad ku aragteen title-ka kore waxaan idin hayaa qodobo wax badan noloshaada ka bedeli doono. Wax aad u fada badan noloshaada ka bedeli doono. Waxaad in badan maqashay sida kalsoonida lagu dhiso. Hebel kalsooni ma lahan. Waxaa kugu jirto kalsooni darro. Haddaba maantay waxaan kula wadaagi doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo 5 qodob oo ka dhisayso kalsoonida qofka bini'aadanka ah amaba ay afka qalaad Ingiriiska ku dhahaan self confidence, how to build self confidence ayaan caaway kula wadaagi doonaa. hase ahaatee inta aan u gudagelin waxaan idinka codsanayaa haddii markii ugu horeysay ay tahay aad soo booqatay channelkayga inaad subscribe tirahdid subscribe button-kana aad beelka aad gambaleelka ku dhufatid, like-na aad siisid, share garaysid. taas waxay sameynaysaa dhiirigelin aad u fara badan inaan kuu soo gudbino barnaamijyo ama programyo markaasi waxtar weyn bulshada Soomaalida ku leh adigana ku leh. hagaag waxaan idin wadaagayaa 5 qodob oo aad ku dhisi karto kalsoonidaada. kalsoonida naftaada. Recognize your superpower. waxaad mar walba acknowledge garaysaa ama aad xaqiijisaa awoodda qaaliga ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyay. qof walba oo bini'aadan oo adduunka ku nool waa special, waa unique. waxaad tahay unique baa tahay, waxaad tahay very special person. marka hore waxaad ogaataa waxa Englishka lagu dhaho strength ama awooddaada aad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyay oo dad fara badan oo aad garanayso aysan lahayn, laakiin adiga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku siiyay. marka ugu horeyso xaqiiji ama ogow awoodaha qaaliga ah ee adiga unique ka dhigayo ee Ilaahay ku siiyay. waxaad hortagtaa muraayad, waxaad isfiirisaa quruxdaada sida ay tahay, waxaad niyadaada gelisaa in aysan qof bini'aadan ka fiicneen. waxaad niyadaada u sheegtaa inaad tahay very special, in aad samayn karto wax walba oo dunida yaalo. afkaada inaad bari karto yes I can do waan samayn karaa. waa qodobka ugu horeeya. 2 eliminate negative people from your life. haddii aad rabtid in aad horumarisid ama improve garaysid self confidence-gaada, waxaad noloshaada ka bixisaa dadka negative-ka ah ee mar walba isku dayayo inay niyadda ka jabiyaan. dadka mar walba oo barnaamij ama wax aad u soo bandhigtid ku dhahayo no, arintan macquul maahan, waxaan ma samayn kartid, waxaan oo dhan ay jiro, dhibaatada hadhow say uga cadqudbi kartaa. dadka noocaas oo kale ah waxay saameyn ku yeelanayaan noloshaada inay dib u dhigaan. marka isku day in dadka intaad nooshahay inaad saaxiibo la noqoto positive-ka ah, dadka aad wax ka faa'iideysid, dadka noloshaada ku dhiirigelinayo, dadka value ama qiimo noloshaada ku darayo. kana dheerow dadka mar walba ku niyad jebinayo, sababtoo ah dadka kula joogo oo surrounding-gaada ah mar walba saameyn bay noloshaada ku yeeshaan. qodobka 3 practice macnaheedu maxay tahay? practice-ka waxay tahay maadaama aad dhisaysid confidence ama kalsooni nafeed. tusaale oo kale waa inaad maalinkii tusaale oo kale waxa la dhaho public speaking-ka. qofka confidence markuusan lahayn awood uma lahan inuu bulshada hortooda ka hadlo. waxay ku noqonaysaa dhibaato ama dhagax weyn waxa hor yaallo. laakiin qofka markuu self confidence-ga dhiso ama xirfadaas u horumariyo, wax walba way u fududaanayaan. markaad fiirisid madaxda caalamka, markaad fiirisid dadka public speaking ama bulshada ka hor hadlo, dadkaas meesha kama aysan bilaabin waxay ka soo bilaabeen iskuulkoodii hoose. markay dhiganayeen primary-gii bay soo bilaabeen mar 2 qof inay hor istaagaan, 3 qof ay hor istaagaan, 4 ay ka dhigaan, ilaa ay gaareen inay bulshada soo hor istaagaan oo ay wax ka dhaadhiciyaan fikirka ayaga ay aaminsan yihiin ay dadka u sheegaan lagana qaato. marka waxaad samaysaa practice garay oo ku celceli wixii aad rabto inaad horumarka ka gaarto. practice garay wax walba aad doonaysid inaad samayso, sababtoo ah wuxuu Englishka dhahaa
practice makes a man perfect wixii lagu celceliyo waxa uu ka dhigaa qofka qof perfect ah qodobka afraad talk to more people ereyga markaad maqashay talk to more people macnaheedu tahay dad fara badan la hadal wuu ka macno weyn yahay waxa laga wada waxay tahay isku day dad fara badan inaad dhex gashid isku day bulshada inaad dhex gashid isku day dadka inaad la hadashid isku day macallimiinta waqti inaad la qaadatid saaxiibo noqotid isku day siyaasiyiinta dadka aad ka garanaysid inaad saxaab la noqotid oo aad bulshada dhex gashid isku day dadka ganacsatada ah inaad friends la noqon kartid waqti gooni aad la qaadan kartid isku day dadka masaakiinta ah ilaahay kuma darnaaday caawinaad u baahan inaad dadkooda la sheekaysan kartid waxa ay u baahan yihiin ka soo saari kartid isla markaana caawin doontid arintaas waxay kugu kalifaysaa markaad friends fara badan yeelatay dadka masaakiinta ay agtaada joogana caawisay dadka inay ku jeclaadaan markay dadka ku jeclaadaanna waxay kor u qaadaysaa kalsoonida awoodaada inaad wax qaban karaysid oo wax walba aad sameyn kartid oo aad impact ama noloshaada aad saameyn ku yeelan kartid dadka kala noloshooda inaad dadka caawin kartid qodobka shanaad oo ah secretka amaba qaabka aad ku horumarin kartid kalsoonidaada waxay tahay feed the brain macnaheedu waxay tahay maskaxda qoodi haddaba su'aasha waxay tahay maskaxda sideed u qoodin kartaa maskaxda waxaad ku qoodin kartaa by reading very many books buugi kala duwan oo noocyo kala leh inaad akhrisid qofka markuu bilaadanka ah uu knowledge ama cilmi uu helo wax aqriyo waxa u hirgelayso kalsoonida naftiisa oo sii badato kalsoonida naftiisa markii qofku wax aqriyo maalinkii oo kale aad wax soo aqrisay isbuucii oo kale waxa sameeysaa inaad aqrin kartid hal buug isku day isbuuc walbo in waqtigaada gelin kartid hal buug bas inaad akhrisid buuggaas waxaad ka helaysaa fikirro fara badan fikirrihii waxay ku suura gelinayaan problemyo fara badan inaad ku xallin kartid once a problem xallisay oo cilmi kale uu kugu soo kordhana waxa boost garoobaysa ama kor aadayso kalsoonidaada shakhsiyeed ee aad lahayd marka aqrinta aqoon inaad heshid oo xirfad aad heshid waxay kor u qaadaa qofka kalsoonidiisa kor inay u qaadmato haddaba shantii qodob ee ugu dambeeyay ayaan kugu celinaya laakiin intaana kugu celin ayaan waxaan qayxaynaa ereyga la dhaho kalsoonidu waa maxay kalsooni aad baan uga cudur daaranay inaan bilowgay aan idin sharxin laakiin waa maxay kalsooni ama self confidence kalsoonidu waa waxa ku tusayo waa awoodda ku tusayso awoodda aad naftaada leedahay ee aad ku samayn karto hawl markaas ku hawl taalo ability-gaada ay ku tusayso inaad qaban karto waxaan iyo waxaan adigoo aan cidna aysan kula qabanaynin kalsoonidu waa wax kugu jiro oo ku tusinayo wax walbo oo adduunka ah inaad samayn karto wax ka hor imaanaya ma jirto kalsoonida waa wax kali ah ee qofka bini'aadanka noloshiisa dhiso qofka kalsooni haduusan isku qabin uu naftiisa iyo kalsooni ku qabin waxa ku imaanayso in naftiisa uu ka shakiyo waxa ku imaanayso naftiisa waxyaabo far badan oo noloshiisa uu qabsan karo inuusan qabsan karin sababtoo ah kalsooni ma bahayo ma aaminsana markii la dhaho gaari wado kala gaariga inuu wadi karo gaarigaas uu waxayn karo ma aaminsana inuu dabaalan karo ma aaminsana inuu nolosha wax ka gaari karo laakiin kalsoonida qofka markuu dhiso waxa uu hor istaagayso oo u soo baxayso adduunko idil inuu maamuli karo inuu wax walba sameyn karo haddaba adiga i dhageysanayo waxaan ogahay oo aan xaqiijin karaa oo aan 100% ogahay inaad sameyn karto wax kasto wax walba dunidan jooga inaad sameyn karto wax ka hor istaagi karo oo kali ah waa adiga naftaada inay ku hor istaagto mooshii ilaahay subxaanahu wa ta'aala bilaadanka waxa uu siiyay awoodo quwado waaweyn oo aysan dadka arkin laakiin wanis talentigaada aad discover garaysid oo aad ogaatid qiimaha aad leedahay iyo sharaftaada oo aad ogaatid awoodda maskaxdaada ku jirto waxa ku hirgelayso in aad wax walba noloshaada aad horumar ka gaarto aan ku celiyo recognize iyo superpower awooddaada qarsoon xaqiiji ama ogow garo 2 dadka negative-ka noloshaada ka bixi 3 practice garay wax walba aad dunida ka rabto si aad ku gaarto 4 talk to more people different people dad fara badan la hadal caawi dadka saaxiibo badan fadsameyso feed the brain akhriska faraha badan
isku day inaad sameyso wax aqri markaa wax aqriso waxaa ku hirgelayo adduunka inaad wax badan ka qabato sababtoo ah waxaa la yidhi the more you read the more you know dadka badan inta badan wax aqriyo waa dadka adduunka soo hogaamiyey khayr baan idin rajeynayaa hase ahaatee waxaa iga xasuusina haddii aad doonayso inaad nala wadaagto fikirkaada quruxda badan fadlan commentiga noogu soo qor haddii aad doonayso in asxaabta saaxiibada ayagana channelkan ay ogaadaan fadlan share garee haddii aad doonayso inaad mar kale soo laabato oo aad barnaamijyadeena nagala qayb qaadato fadlan subscribe dhe oo weliba notification bell ka furo haddii aad doonayso amaba aad ka heshay barnaamijka aan hadda aniga idiin soo duubay fadlan like dheh aad baad u mahadsantihiin